وعند عوديال قضب كان waxaan diirada ku saareynaa isku shaadhayntii golaha wasiirada ee koobneed ee shalay la sameeyay ayaa waxa ka dhashay falcelin xoog leh qaar ayaa soo dhaweeyay siyaasiyiina maamul goboleedyada qaar ayaa soo dhaweeyay macawsleyda ka dagaalanta gobolada qaarkood ayaa soo dhaweeyay halka kuwa kalena ay diideen wasiirka gaashaandhiga isku shaadhayntan oo ilaa haatan feedback badan iyo sidoo kale falcelin xoog leh ay ka dhalatay waan kula wadaagi doonaa qaabka ay bulshada Soomaaliyeed isku shaadhayntii koobneed ee ra'iisul wasaare Xamse uu sameeyay shalay oo axad ahayd maxaa ka dhashay horeyn hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato janaalka fadlan subscribe janaalka iska sii oo xuquuqdiisa dhac ku sii subscribe muuqaalka like saar share gare si saaxiibo badan u gaaro mahadsanid saaxiibayaal soo dhawaada mar kale waxaa golaha wasiirada lagu sameeyay isku shaandhayn ra'iisul wasaare Xamse oo mudooyinkii u dambeeyay bal hadal hay qaabka isku shaandhaynta ay u dhici doonto ayna u akayd mid la sii ogaa qaabka isku shaandhaynta u dhacday sida la isu dawo mariyay wasiirada qaar ayaa mar kale waxa ka dhashay falcelin xooga falcelinta ugu badan waxay ka dhalatay wasiirka gaashaandhiga Axmed Macalin Fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya hase ahaatee loo wareejiyay dhinaca wasiirka gaashaandhiga wasaaradan gaashaandhiga hadii aan dib ugu laabano waxa ay bil gudaheed mareysaa wasiirkii labaad iyadoo dhowr wasiir ay bil gudaheed soo mareen hadii wasiirka gaashaandhiga Axmed Macalin Fiqi laga dhigay ugu horeyso oo bil gudaheed ay wasaaradaasi mareysaa in ka badan 2 wasiir sida loo ogyahay isku shaandhaynta ugu badan waxa lagu sameeyaa inta badan wasaaradda gaashaandhiga arrimaha dibadda dad badan ayaa ka faalooda in wasiiro badan oo ka mudan waxna qabanin ay jiraan wasaaradahaasi inta badan laba bedelo balse aysan dawladda ilgooni ku eegin ra'iisul wasaarahana oo san fiir hase ahaatee isku shaandhayntan iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhiga oo dad badan ilaa iyo xal ilaa isaaka ay hadal hayaan qaabka isku shaandhayntan ay u dhacday sidoo kale wasaaradda gaashaandhiga oo ahayd wasaaradda kaliya ugu muhiimsan dalka marka loo fiiriyo xaaladda adag ee ku jiro ay dad badan falaqeeyeen qaabka Axmed Macalin Fiqi ugu haboona in uusan ku habooneyn Axmed Macalin Fiqi hase ahaatee dad badan ayaa soo dhaweeyay ugu horeeya macawsleyda beesha xawaadle oo sheegay in wasiirka gaashaandhiga ay soo dhaweynayaan sidoo kalena uu yahay wasiir adag dalkana ay yihiin markii ugu dambeysay ay macawsleyda beesha xawaadle guureysan lahaayeen hadii wasiirka gaashaandhiga laga dhigay Axmed Macalin Fiqi deegaanada uu ka soo jeedo qaarkood waxa ku sugan ururka Al-Shabaab oo galmudug kama socoto dagaal xoogan sida gobolada dhexe iyo shabeellada hoose iyo Hiiraan ay ururka Al-Shabaab xoog u soo saareen galguduud wali dagaal xoogan ma ka socdaan dad badan ayaa isweydiinaya qaabka uu wajihi doono iyo sida dagaalkan uu u maareyn doono dalka xaalad adag oo looga tagay iyo sidoo kale dardarka ururka Al-Shabaab ay mudooyinkii u dambeeyay soo saareen xarumaha dawladda ay ku leeyihiin deegaanada qaar iyo sidoo kale xerooyinka ciidamada military ay ku leeyihiin shabeellada dhexe Hiiraan iyo galguduud ayaa dad badan ay sheegeen in wasaaradda gaashaandhiga haatan ay ahayn xilligii la bedeli lahaa marka loo eego dagaalada xoogan halka dad badan ay sheegayaan in ay tahay in wax laga bedelo istiraatiijiyad dagaal maadaama lagu fashilmay dagaalka ururka Al-Shabaab lagu jiro oo Al-Shabaab ay la wareegeen aadan yabaal awoorey laga bixin waayay cadal hadii rabaan iyo jawhar ay iska soo weerar rabaan goobtay doonaba iska soo weerari karaan in ururka Al-Shabaab ay soo xoogeysteen sidoo kalena ay tahay in wasaaradan wax badan laga bedelo wasaaradan ay dad badan sheegay in aysan ahayn saameynta ugu xoogan gaashaandhiga ee ay tahay taliyaha ciidanka in la bedelo halka wasaarad lagu meereysan lahaa sida ay dad badan qabaan wasaaradan ay dad badan sheegeen in meesha ay ka bugtay ururka Al-Shabaab looga guuleysan waayay mudooyinkii u dambeeyay ay u soo rogaal celiyeen ay tahay taliyaha ciidamada General Odawa Yusuf Raago oo ay tahay in la bedelo gabi ahaan meesha laga saaro sidoo kalena lagu shaandheeyo qaabka istiraatiijiyad dagaalna la bedelo maadaama uu dagaalkan guur dareystay wajigiisii koowaad uu madaxweyne Xasan Sheekh ku magacaabay oo u tagay sidoo kalena uu ku dhawaaqay in mar kale ururka Al-Shabaab la gali doono dagaal xoogan oo loogu xoreynaya koonfurta Soomaaliya kadib markii uu ku sugnaa degmada Cadale iyo aadan yabaal iyo sidoo kale Muqokori uu madaxweynaha uu dhawaaqay in gabi ahaan ururka Al-Shabaab laga ciribtiri doono shabeellada dhexe iyo Hiiraan hase ahaatee ma suuragelin oo Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen in ay soo rogaal celiyaan sidoo kalena ay iskood u qabsadaan degmooyin waaweyn oo ay weligood ku hamineen sida aadan yabaal oo kale awoorey ay shafka u dhigteen oo jilbaha u aaseen oo muddo bil ka badan ay ku dhex damaashaadayaan oo cid ka bixisa la kari waayay intaas oo dhan dadka inay isku biiriyaan dadka qaar waxa ay ka faaloodaan in aysan ahayn saacan xilli la bedelo wasaarad gaashaandhiga ee ay tahay in la bedelo taliyaha ciidanka General Odawa Yusuf Raago halka dad badan ay difaacayaan aysan u arkin in xooga General Odawa ay hal mar guul darada soo wajahday saacate uu ahaa ninkii qaabiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ahaa
nin dhalinyaro firfircoon sidoo kalena ku dhiiraday in ururka al-shabaab dagaal la gargoobo badan ay dowladda ku guuleysatay isku day badan ururka al-shabaab ay kusoo qaadeen xerooyin ciidamada milatarigana ay iyaga ka guuleysteen si kastaba haatee wasaaradda gaashaandhigga oo haatan xilligan la jooga dhaqdhaqaaqa Soomaaliya muhiim u ah ayaa mar kale waxay muuqataa in ay gashay isbedel xoogan iyadoo dad badan ay fiirin doona il goorina ay ku leeyihiin in laga raayi doono iyo in loo aayi doono in weli loo darsan doono wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gashay xaalad colaadeed oo halis ah la dagaalanka ururka shabaab ayaa ku fogaaday ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka dagaalama ay dad badan dhaliilayaan qaabka ay u wajaheen dagaalka halka firfircoonida iyo dagaalka xoogan ee ururka al-shabaab ay ugu firfircoon yihiin ciidamada xoogaga macawisleyda ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne Xasan Sheekh oo ay u soo buuxsantay muddo 2 isbuuc ka yarna ay ugu harsan tahay in ay u buuxsanto sanad guurida 3aad kadib markii uu xukunka la wareegay 15 May sanadii 2022 uu kursiga ku fariistay ayaa dad badan waxa ay dhaliilsan yihiin waxqabadka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab xaalada dagaal ee dalka ku jiro xilliga doorashooyinka iyo qaabaha uu u maareeyay haddana madaxweynaha ayaa waxa wajahaya culeysyo badan oo intaas oo dhan waxa uu madaxweynaha inta badan ku nuuxnuuxsadaa inay muhiim tahay in ururka al-shabaab laga adkaa sidoo kalena amniga caasimada uu ku guuleystay waxyaabaha la filayo inuu miiska la tago 15 May xukuumadiisana ay tahay hase ahaatee daawade adiga sidee ay kula tahay isku bedelida wasaaradahan xaalada dagaal ee dalka uu ku jiro iyo sidoo kale mid dhaqaalaba qaabka doorashooyinka qaybka faalada ayaad aragtidaada igu soo gudbin kartaa haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay channelkan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid muuqaalka like saar mahadsanid